بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم khaladaadka dhaqaale ee dhalinyaradu inta badan ay galaan waa arrin si weyn u saamaysa mustaqbalkooda nololeed maadaama marxalada dhalinyarimada ay tahay waqti lagu dhiso aasaaska nolosha qofka dugsiyada iyo jaamacadaha intooda badan kuma baraan ardayda sida loo maareeyo lacagta sida loo qorsheeyo mustaqbal dhaqaale ama sida loo sameeyo go'aano dhaqaale oo sax ah natiijadu waxay noqotaa in dhalinyarada ay ku tiirsanaadaan talo saaxiibo ama khibrad shakhsiyadeed oo mararka qaar qaldan qofka marka uu da'yar yahay wuxuu haystaa fursad tamar iyo maskax furan oo uu ku dhisi karo mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan balse qaladaad yaryar oo maanta la iska indhatiro ayaa beri isku bedeli karaa dhibaatooyin aad u waaweyn dhalinyaro badan ma fahmaan muhiimadda go'aanada dhaqaale ee ay maanta qaadanayaan waxay u arkaan lacagta wax si fudud lagu helo si fududna lagu bixiyo iyagoo aan ka fikrin cawaaqibta fog ee ka dhalan karta mustaqbalkooda mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dhalinyarada haysta maanta waa faham la'aanta qiimaha dhabta ee lacagta qaar ka mid ah dhalinyarada waxay lacagta u arkaan wax lagu raaxaysto lagu iibsado waxyaabo aan daruuri ahayn iyagoo aan u arkin aalad lagu dhiso mustaqbalka marka dhalinyaro badan ay helaan lacag ha noqoto mushaar deeq ama gargaar qoys waxay si dhaqsi lagu qarash gareeyaan waxyaabo aan faa'iido u lahayn mustaqbalkooda dhaqanka noocan ah wuxuu ka yimaadaa faham la'aanta qiimaha dhabta ee lacagta maadaama dhalinyarada intay dhalinyaro yihiin aysan la kulmin mas'uuliyado dhaqaale oo culus khalad kale oo aad u baahsan waa in dhalinyarada aysan lahayn qorshe cad oo ay ku maamulaan dakhliga soo gala dhalinyarada inta badan ma lahan miisaaniyad sax ah mana kala saaraan wax daruuriga u ah iyo waxaan daruuriga u ahayn lacagta markay soo gasho ayay isla markiiba bixiyaan iyagoo aan ogeyn meeshay ku bixiyeen iyo waxay ka faa'iideen arrintan waxay dhalinyarada ka dhigtaa kuwa had iyo jeer dareema in dakhligooda uu ku yar yahay xitaa haddii ay helaan ama ay qaataan dakhli aad u fiican qorshe la'aanta waxay keentaa jahwareer iyo walbahaar joogta ah oo ku saabsan arrimaha dhaqaalaha sidoo kale dhalinyaro badan waxay ku dhacaan qaladaad ah inay ku daydaan nolol aysan awoodin waxay arkaan dhalinyaro badan oo ka soo muuqda baraha bulshada kuwaasoo ku nool nolol khiyaali ah waxayna hamiyeen inay ku noolaadaan noloshaas oo kale taasoo ku rixda dhalinyarada inay muujiyaan nolol ka weyn tan ay dhab ahaan ku nool yihiin waxay iibsadaan dhar qaali ah telefoonno casri ah iyo waxyaabo kale oo aan la jaan qaadi karin dakhliga soo gala si ay ula mid noqdaan dadka kale ama ay u muujiyaan inay horumar ay sameynayaan ku dayashada indhala'aanta ah waxay dhalinyarada gelisaa culeys dhaqaale dayn iyo niyadjab maadaama ay isku dayaan inay la jaan qaadaan heer nololeed aan weli aysan gaarin qaladaadka kale ee waaweyn ee dhalinyarada ay sameeyaan ayaa ah diin qaadasho aan baahi dhaba loo qabin dhalinyaro badan waxay amaahdaan lacag iyagoo aan qorshe cada u lahayn siday u bixin lahayn lacagtaas qaar waxay lacagta u amaahdaan si ay u daboolaan qarashaad aan muhiim ahayn halka qaarka kale u arkaan deynta xal degdeg ah oo ay kaga baxaan dhibaato ku meel gaar ah deynta haddii aan si xigmad leh loo isticmaalin waxay isu beddeshaa culays maskaxeed iyo mid dhaqaale waxayna dhalinyarada ka hor istaagtaa inay horumar sameeyaan maadaama dakhliga soo gala uu ku baxo bixinta deymo hore khaladka kale ee dhalinyarada sameeyaan ayaa ah dayaca keydinta dhalinyaro badan ma arkaan faa'iidada keydinta waxay u haystaan in keydintu ay ku habboon tahay oo keliya dadka waaweyn ama kuwa dakhligooda aad u sareeyo xaqiiqdu waxay tahay in keydintu ay ka bilaabato waxa yar isla markaana ay tahay caado si tartiib ah loo dhiso marka dhalinyarada aysan baran inay wax keedsadaan waxay mar walba ku noolaadaan nolol ka baxsan gacantooda iyagoo aan lahayn waxay ku tiirsanaadaan markay dhibaato ku timaado tani waxay keentaa in xaalad kasta oo degdeg ah ay noqoto musiibo dhaqaale waxaa kalaa jira qalad ah in dhalinyarada inta badan ay ku tiirsanaadaan hal il oo dakhli ka soo gala qaar badan waxay ku qancaan mushahar yar ama shaqo ku meel gaar ah iyagoo aan ka fikrin inay horumariyaan xirfadooda ama ay abuurtaan ilo kale oo dakhli ka soo gala marka shaqada ay qabtaan ay istaagto ama laga racdeeyo ama dakhliga yaraado qofku wuxuu wajahaa dhibaato dhaqaale oo degdeg ah ku tiirsanaanta hal ilo dakhli ah waxay dhalinyarada ka dhigtaa kuwa u nugul dhibaatooyinka halka kala duwanaanshaha dakhliga uu siin karo ammaan iyo xasilooni dhaqaale aqoonta dhaqaalaha oo xadidan ayaa sidoo kale ah sabab weyn oo ay dhalinyarada ugu dhacaan qaladaad dhaqaale aqoon la'aanta dhaqaalaha waxay keentaa in qofka uu sameeyo go'aano degdeg ah kuwaasoo saameyn xun ku yeesha noloshiisa waxaa sidoo kale jira dhibaato la xiriirta wakhtiga maadaama dhalinyaro badan ay wakhtigooda ku lumiyaan waxyaabo aan faa'iido u lahayn horumarkooda dhaqaale wakhtiga oon si wanaagsan loo isticmaalin wuxuu la mid yahay ama ka daran yahay lacag la khasaariyo sababtoo lacagta markaad khasaarto dib ayaad u kasban kartaa balse wakhtiga waa kheyraadka keliya aan dib loo heli karin daqiiqad haddii maanta kaa lunto adigoo aan ka faa'iidaysan ma laga yaabo inay dib kuugu soo laabato
maanta dhalinyarada qaar waxay ku mashquulaan madadaalo xad-daaf ah iyagoo iska indhatira fursadaha waxbarasho, tababar iyo horumar xirfadeed. Balse wakhtigaas ka lumay wuxuu isku beddelaa qoomamo iyo fursad la seegay mustaqbalka. Kalsoonida xad-daafka ah iyo degdega badan ayaa sidoo kale ah qaladaad dhaqaale ee dhalinyarada inta badan ay sameeyaan. Qaar badan oo dhalinyarada ka mid ah waxay rumaysan yihiin inay si fudud ku guulaysan karaan iyagoo aan samayn cilmi baaris ku filan ama la tashi dad khibrad leh. Waxay galaan ganacsiyo ama maalgashi iyagoo ku saleynaya warar aan xaqiiqo ahayn ama rajo oo keliya. Marka ganacsiga ama maalgashigu uu noqon waayo sidii ay ku haminayeen, waxay ka dhaxlaan khasaaro aad u daran, waxayna ka qaadaan niyad-jab weyn. Ugu dambeyn, qaladaadka dhaqaale ee dhalinyarada badankood ay galaan wuxuu ka yimaadaa faham la'aanta waxa ay rabaan. Si kastaba ha ahaatee, qaladaadkan waa kuwo cashar laga baran karo haddii qofka yeesho wacyi, aqoon iyo rabitaan sax ah. Dhalinyarada marka ay bartaan qiimaha lacagta, muhiimadda qorsheynta, kaydinta iyo maalgashiga naftooda, waxay awood u yeelan karaan inay ka fogaadaan dhibaatooyin badan oo dhaqaale ah. Mustaqbalka wanaagsan kuma yimaado si kedis ah, balse wuxuu u baahan yahay go'aano sax ah oo maanta la qaato. Muuqaalkeena maanta wuxuu xusuusinayaa in dhalinyaronimadu ay tahay fursad dahabi ah oo aan mar kale soo noqonayn, isla markaana loo baahan yahay in si xigmad leh oo mas'uuliyad leh loogu faa'iidaysto. Waa xilli uu qofka leeyahay tamar, maskax iyo awood uu ku dhisi karo aasaaska mustaqbalkiisa nololeed iyo mid dhaqaale. Sidaas darteed, go'aanada maanta la qaato, doorashooyinka maanta la sameeyo iyo dadaalka maanta la bixiyo ayaa ah waxa si tooska ah u go'aamin kara nolosha beri lagu noolaan doono insha Allahu tacaala. Haddii dhalinyarada waqtigooda ay ku lumiyaan waxyaabo aan faa'iido u lahayn horumarkooda dhaqaale, kana gaabiyaan inay bartaan aqoon, xirfad iyo shaqo, waxay mustaqbalka la kulmi doonaan caqabado badan. Laakiin haddii ay maanta doortaan inay naftooda maalgeliyaan, ka fogaadaan qaladaadka, kana faa'iidaystaan fursadaha yaryar ee horyaala, waxay beri heli doonaan nolol ka wanaagsan mid ay maanta ku nool yihiin. Xaqiiqdu waxay tahay in wixii maanta la sameeyo ay yihiin waxa beri lagu noolaan doono insha Allahu tacaala. Balse mar walba waxaad ogaataa in dhalinyaronimadu ay tahay wakhtiga ugu habboon ee la dhisi karo mustaqbal ifaya oo lagu faani karo. Insha Allahu tacaala mawduuceena maanta halkan ayuu nagu egyahay. Intii mawduuc kale, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.